naarta ololeysa laa yaslaahaa ma geli doono ilaa mooyaane al-ashqaa mid ayaan daran unbaa geli doona. 7 sano ayuu xabsi ku jiray. waxa uu la kulmay jirdir aad u xoogan waxaana had iyo jeer ka duubi jireen muuqaalo argagax leh iyadoona ugu dambeyntiina la soo bandhigay muuqaaladan. haddaba shiiqan waa shiiqada ugu caansan geyga Soomaalida waxaana lagu magacaabay Maxamed Ismaaciil. haddaba daawadayaal waxaan go'aansanay in qisada shiiqan oo rasmi ah idin la wadaagno maadaama dad badan ay arkeen muuqaaladan hase yeeshee aysan ogeyn sababta ka dambaysa ee shiiqan sidan loogu gelayo iyo shakhsiyadda dhabta ah ee shiiqan. haddaba daawadayaal waxaan intaan kula wadaal marka hore like garee si uu faafo una gaaro bulshada Soomaaliyeed nagu dhiidhiyaan arrimada noocan oo kale ah. sidoo kale nagu soo biir asxaabteena ku xiran channelkeena subscribe saaraya gambareykana furnaya. waa bilowga sanadka 2004 guud ahaan geeska Afrika waxaa ka jira cabsi la xiriirta argagixiso waxaana bilowday beegsiga culimada Soomaaliyeed iyadoo loo gelinay shaati argagixiso si loo gumaado. haddaba arintan ay soo maleegeen reer galbeedka ayaa waxaa lagu beegsaday culimo badan Soomaaliyeed. halkani waa Soomaaliland waxaana ka dhaxaya fal argagax ah oo lagu beegsanay Sheekh Maxamed Ismaaciil waxaana lagu soo xiray xabsiyada ku yaala Hargeysa si su'aalo loo weydiiyo. arinta su'aalo kaliya kuma koobna waxaa la kulmaya ciqaab bini'aadanimo tii ugu xumayd. koronto ayay ku dhijinayaan gacmaha iyo lugaha ayay kaga istaagayaan ilaa iyo madaxa waxayna ka soo saari rabaan hadallo iyaga dooni rabaan kaasoo been abuur ah si maxkamad been ah loo saaro kadibna lagu xukumo xukun adag. haddaba aan isla adagna muuqaalka argagixid badan leh ee buraha bulshada ku baahay kaas oo muujinaya sheekha sida loo galay. ولكن العالم هذا مشتو ما أنا مسحر قال لي ما قاسي ولادة كل شيء ماشي ولادة استفادة ولا شقة سنة ماشي قال شقة وين هذا ما عنده ولا زوجته وعلى وصحر أنا محمد سكوينس ما أنا محمد ده ما رد ده اللي قصقت هذا حبل الله أنا إيش هذا حبل الله سير هذا طيب محمد علي جدي ورا حد علي جدي كله ولاد معي علي جدي له يصرف كذا عيب نسأله بركات هكذا أسوأ تبعثات عم حسابي أنا بركات هذا وقت ما سوق أصلا حسوا قوي لا تجيك بركات حقوق أنا حسابي أنا بركات صوتي ما أمريكا كل عام سنة كي العقد المسيسة أنا ما يعطي يمكن كويت حاجة كورة شو اسمه كذا شو اسمه العنقري هنا العالم وتذكر حل جانا وحنو بيتكون عدو كلمه هي يرقق حسده هرجع بحساب كيشوت سمع يعني ما يعني إني ولا هذا إيش كشخ يستاهل إنه ضد كنا دين تولي شركة إذا أنت حياة الكاس مش قال إذا أنت لقى شيء دشيسين جيسات على قالتين أنا وايد وقلنا بابا يسكو بنت أصلا أنت أول ما هاي يمكن ده أصلا شفته ما المخاطر اللي كنت عامل صاحب أنت عني صاحب ده وحصل سرور مثل ذلك هقصد الله كل معانا قصبة واحد كور عند أديكوا عند أي تاكل يتهد الشيء دونتا أديكوا واحد من المبارسين هذا كوتا لقوا بدين نفع ذا واحد يجري بس كادي بدين سلاح وطلاقان وحلالي وحلا ويعني ليس يعني مش هذا هو ده واحد عدينا يسمونه كان الموضوع أحمد وهي محاضرة دي أذكر قسم مساجد حديد الشيخ مصطفى محاكم كلفين مريكا بوحك الشكل ثم وحي لايك الشيء وحنا ما كشري أنت لايك الشيء وما كشري سيدي أردت صاحبة سومالي الآن إثيوبيا يعني ما سوينا ما حقدر له وحقدر في السنة إثيوبيا أنا وقال إلهي وأنا سبحانه وتعالى قال في شيء قالوا مشي تفسير كان محل إثيوبيا كمر والبوس عنده حتى ولاد عالية إلهي ما صار على المسجد وأحماله قاتل الذين يلونكم من الكفار ولا يجد فيكم غلظة والشاك حنقول شيء دينت حنقول شيء هذا يسأل وحدي أصيبتها أنا دينت إلهي كل حين ما يمشي مرة هو حقول لي لا خلاص وضح لك يلا هذول ريال هذا النووي خلكم ماشي لا أنا هم وجاني هجانين لا حدا كسار أنا هدي كم كنور هذا يكون تمام هذا يكون تمام ده سارس لكن أنا محمد ويا هذا كبعدي وإحنا قلنا يا ورئيس وحبين بيسك بدلنا حبين بيسك بدل دونا
maanta waa sheekhan waa sheekyada uga caansan magaalada Hargeysa iyo guud ahaan geeyga Soomaalida waana sheekh caalim ah oo dad badan kitaabo ka akhristaan isagoona ah sheekh akhriya quraanka tafsiirka quraanka kariimka bal ayna soo daawana clip kamid ah casharadiisa annaga iskale baa ilaahay yidhi lal aakhira tadambe oo aakhira ahiyo wal uula iyo tan horeysa labadaba ana iskale maxaad u dayici aakhiro adduunyadana aad isu siin labada daaroodba anigaa leh saasuu ilaahay leeyahy wa inna lanaa annaga iska leh lal aakhira ta dambana annaga iska leh wal uulaa tan horraysay aad adigu isa siisay anigaa leh inaad ku kaaftoomaysa aad moodayna adigu melihiida ammaanay kugu tahay fa andartukum dhegihiinna fura waan idiin digayaaye dhegihiinna fura baa ilaahay leeyahay fa andartukum insaan yahow waan idiin digayaa naaran naar baan idinka digayaa naarta oo taladaa ololaysa naarta ololaysa laa yaslaahaa ma geli doono ilaa mooyaane al ashqaa mid ayaan daran unbaa geli doona nin nasiib daawadayaal waxaanu leenahay dhibkii aad soo martay waxaad la kulantay ciqaab bini'aadamnimada ugu xumayd shiiqan waxa la xiray 2004 waxaana xabsiga laga soo daayay 2010kii inta oo dhan wuxuu ku jiray xabsiga inta wuxuuna la kulmayay ciqaab iyo jirdil haddaba waxaan leenahay waa inay ka dhiidhiyaan dadku culimadoodii in sidan loo galo maadaama uu wax been abuura lagu abuuray oo sidan loo dilay halkan ayaan kusoo gabagabeynay barnaamijkan ka diyaariyay intaan muuqaalkiisa kala kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaam naarta ololaysa laa yaslaahaa ma geli doono ilaa mooyaane al ashqaa mid ayaan daran unbaa geli doona